daawadayaal waxaa ku soo dhawaataan barnaamijka wargelin oo aad had iyo goor ka barateen in uu idin soo gudbiyo dhacdooyinkii toddobaadkii hadda ina dhaafay ama ka dhacan wadankeena dibadiisa ama wadankeena gudihiisa. barnaamijka aan maanta idin hayno waa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan oo aad ka heli doontaan, laakiin intaynan u gudagelin barnaamijkeena maanta waxaanu jeclaysanay inaan idinla qaybsano arrintan oo ah ma ogtahay in Universal TV laga daawan karo barnaamijka wargelin maalin kasta oo axada warka kadib. waa sax, maalin kasta oo axada warka kadib waxaa ka daawan kartaa barnaamijka wargelin. halkaas ayaana nagala socon kartaa. waxaa kaloo ka daawan kartaa barnaamijka wargelin website-yada Soomaalida ama website-ka goonida ah oo ah wargelin.com. barnaamijka maanta waa mid aad u xiiso badan oo aad ka heli doontaan. waxaana ku bilaabaynaa qayb cusub oo aan rabno inaan bilowno oo la yiraahdo taxanaha qurbaha. taxanaha qurbaha waxaan ka wadnaa, waxaanu dabagelaynaa ummadda Soomaaliyeed meeshii doonaan ha joogaan, hal qof ama hal reer. waxaan rabnaa inaan idin tusno qofkaas ama reerkaasi nolosha ay ku nool yihiin, sida ay yihiin, waxyaabaha ay rabaan inay mustaqbalka sameeyaan iyo noloshooda sida ay rabaan inay wax uga bedelaan. toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa wiil Soomaaliyeed oo ciyaarta footballka. haddana wiilka Soomaaliyeed waxa uu u tababaranayaa sidii loogu qaadan lahaa ciyaarta NFL-ka ee la daawado. magacayga waxa waaye Cumar Xuseen, dadka waxay i kasaanaan neesteeda Cali. marka waxa waaye ciyaarta footballka aad iyo aad uga helaa. California ku soo koray San Diego Soomaaliya lagu dhalay, laakiin marka magaalada San Diego usoo guuray anigoo yar waxaa jira 4 sano camal. ciyaarta koo usoo saftay waxa waaye barkinka oo ciyaari jira oo wax la dhahayo adiga barkinka waxay dhahaan u maleena Balboa Park oo San Diego ku yaalo Zuga agtiisa. marka barkinka soo ciyaari jiray maxaa way familkayga adeerkayga lacag dhiibay 300 lagu dhiibay oo aala dhiibay oo lagu ciyaaraa banooniga. marka banooniga marka ciyaare waxa waaye waa ka helay aad iyo aad uga helay. marka ciyaare coachayaasha iyo macalinayaasha oo banooniga oo coach way iga heleen aad iyo aad waxay dhaheen adiga waa ku guuleysanay ciyaartan hadda sii wadid. markaas meesha ka sii bilaabay sii waday. marka barkinka marka uu ciyaari jiray middle school oo sii gudbay. middle school marka uu gudbay waxa ciyaaray flag football. coachkayga wuxuu ahaa coachka koowaad Coach Johnson, uu dhintay hadda Wilson Middle School oo San Diego ku yaalo. marka adiga markaas ka bacdi Hoover uu sii gudbay. Hoover High School San Diego uu ciyaaray freshman year sanadka koowaad footballka. marka uu ciyaaray ku sii guuleystay. marka waa la iga helay jaamacooyinka dhan ay fiirnayeen. yarka oo Reggie Bush la dhahay hadda oo caanka laga kasaa USC ka soo baxay oo hadda New Orleans Saints soo ciyaarna isla soo kornay San Diego ku soo koray. wuxuu ciyaari jiray Helix High School. marka high school baa California ka soo bilaabay. high school ka freshman sanadkii ugu koowaad California ka soo ciyaaray. marka ka soo ciyaaray ka bacdi adiga waxa uu soo gudbay Columbus Ohio. Columbus marka uu maaday freshman year ka sii dhameystay sanadkii koowaad. marka sii dhameystay banooniga waa ku guuleystay. waxa uu ciyaaray adiga Brookhaven High School Columbus ka yaar Carr Road. Brookhaven waxa koox waxay ahayd oo adiga kooxda waxa reynay 13 games arin oo ciyaaraha marka reynay waa ku guuleystay. marka ani waxa la qaatay MVP player of the year midka ugu qatarsanaa kooxda la qaatay. waxa ciyaaray wide receiver ka ciyaaray iyo DB free safety. waxa way difaac difaaca iyo dhanka waxa ka ciyaaray receiver marka ka ciyaaray adiga jaamacooyinka dhan ay fiirsanayeen gameka varsity games starter ahay. Brookhaven marka 2 sano u ciyaaray. markaas waa ka sii wareegay Brookhaven. Marion Franklin u wareegay. Marion Franklin marka u wareegay coachayaasha iga sii heleen. Brookhaven ka soo baxay school oo caadi ah. marka ka soo baxay Marion Franklin waxa waaye south dhinaca south ka ciyaaray magaalada south iyo north ay kaliin. Brookhaven north ka waaye south ka u sii wareegay. south marka uu gudbay Marion Franklin oo ciyaaray. marka uu ciyaaray Marion Franklin waxa waaye aad iyo aad iga heleen. waxa waaye waxa dhalay adiga sanadka 2005 waxa dhalay probably like 15 touchdowns or receiving touchdowns. markaas ka bacdina adiga interception waxa qabtay 3 interception iyo punt return kick return. waxa la dhahay banooni marka lagu soo harantay qabanaysa la ordeysad. waxa waaye kick return wax la geliya ciyaarta oo dhalinyarada orodka badan waxa ka mid ah kuwa orodka badan. marka la geliyna waxa ciyaarta way iga heleen coachkayaasha iyo jaamacooyinka iskoolka taa hadaa gashay masawirkayga ku dhigan iyo kooxayaasha kareen iyo waxyaashaas. I am very proud of Omar
for all his accomplishments. He was a very good student, very good athlete at Marion Franklin High School, and I'm very proud of him. Thank you, Miss Hardy. This is one of my favorite counselors at Marion Franklin, and you know, and as you see, she got my picture up there. I appreciate her for having my picture up there. So, Those are all the boys that have gone from Marion Franklin High School and to college and farther. So I'm very proud of all my athletes and academic people here at Marion Franklin. Senora Fouts, one of my Spanish teachers when I went here my senior year, so you know, we're gonna ask her about me. So how you feel about me when I was in your class, or like how I used to act and all that, you know, my personality? Was I a good kid in class? What you think, Senora? You were very, very mature and very, very committed. Okay. Even sometimes when you felt like you didn't know it, you asked the right questions and always tried to learn. All right. You know, always tried to do the right thing. All right. And I was very proud of you. And as you know, you was one of my favorite teachers. Oh, I've yeah. always loved you. I pay you to So, say yeah, that. So I hope, and make sure you watch the Spike TV Okay. show. You know, next month it's gonna be on there, hopefully. So, Okay, all right. I'll do that. Thank you. Western Michigan markaa doortay Western Michigan u guuri Michigan ku ciyaaray Michigan markaa ku ciyaaray waxa waaye waxa ciyaaray wide receiver dhalinyaro badan isla ciyaarnay Western Michigan oo hadda NFL-ka ku jiraan. Lewis Delmas kamid ah, yar kale EJ Biggers wuxuu ciyaaraa Tampa Bay Buccaneers, yar kale oo London Fire wuxuu ciyaaraa Kansas City Chiefs. dhalinyaradaasna waa isla soo ciyaarnay. Marka aniga jaamacadda waxa soo ciyaaray 2 sano marka uu soo ciyaaray adi touchdown badan dhali marka si dhalina waxaa la ii qaatay special teams player of the year. Special teams waxa way xagga oo marka binooniga la harantinayo oo lagu soo harantay binooniga marka qabatid waa la orday binooniga. Special team la ii qaatay iyo adiga dhalinyaro badan oo high school isla ciyaarna waxay u ciyaaraan jaamacadda Minnesota u ciyaaraan hadda qaar NFL-ka ku jiraan iyo practice player of the year na waa ahay mar ya shahaadada isi shahaadooyinka xaafadda iyo aan darbiga ii suran yihiin. adiga wallahi Cabdisalaan ciyaartan waa ka helaa si fiican uga helaa. waxaa rabaa Soomaalida midka ugu koow inaan noqdo oo NFL-ka qaadato. NFL-kana adiga waa la qaatay Dallas Cowboys ay qaadatay markii ay qaateen adiga trial suubi tartan ku jiray. tartanka waa ku guuleystay laakiin waa la iraabay adiga. marka hadda insha Allah waa sii wada ciyaarta aniga kooxooyin badan hadda fiirsanayso oo wax ka mid ah Tampa Bay Buccaneers dhalinyaro badan la hadlaa iyo coach badan oo ciyaarta oo NFL-ka xukumo la hadlaa. marka adiga insha Allah Ilaahay wax ka soo wato. ciyaartan waxa ciyaar oo North America football ay dhahaan. footballna waxay u dhahaan adiga waxa ciyaartan ciyaar oo waxa xoog leh oo inaad jeclaatid waa ciyaar oo waxa bari ina u qaadid waa oo you have to give this ciyaar your all, you know. So basically adiga ciyaartan waxa dadka Soomaalida iyo Afrikaanka oo Kenya ku soo koray meelahaas ciyaartan si fiican u ka sayn laakiin ciyaartan waxa laga kasaa wadankeena United States laga kasaa. ya Soomaalidana ciyaarta wallahi ciyaar ku cusub waa duqooshinka hadda hooyo camal marka u sheegay ciyaarta football ciyaaraan markay dhaad waxay dhaya arraxajaban ciyaarta ku jajaban ay leedahay laakiin xoogayga ma ogay iyo bir habeen imaan sa u qaado. marka adiga waxa ciyaarta quarterback jira receiver yaala jiraan DB waxa la dhahay DB defensive back wide receiver oo loo gama waa binooni ana dhanka wide receiver ka ciyaara running back waxa oo binooni la ordo defensive tackle waxa ku line-ka oo difaaca dhinaca difaaca offensive line ku waxa oo offensive quarterback difaaca. marka adiga ciyaarta waxa barashay u baahan tahay ma iska fahmaysid. marka aniga wallahi certain oo marka yara ciyaarta si fiican u bartay habeen imaan ESPN u fiirsanay sports and waa bartay Ilaahay ya dhanka Ilaahay wax oo Ilaahay dhinaciisa qornaada ciyaarta. marka hadda ciyaar si fiican u jeclahay waana ka sawaan ciyaari karaa. coach-yaashii horta aniga way jecel yihiin because waxa ahay qof oo aad iyo aad u dadaalka waa wada. marka coach-yaashii aad iyo aad ay jecel team 2004 2005 ila 2006 waxa ahay team captain. team captain nimada waxa ma iska kayseenayo waxa inaad dadaalka wadad oo practice marka oo waqti binooniga la barnaa inaad extra time joogtid oo coachka wax su'aalo warsatid waxa marka coach-yaasheeda aad iyo aad ay jecel yihiin coach-yaasha badana. coachkayga hadda high school ka daada warayso waxa uu dhahay Umar Hussein yarkaas muxuu suubiyaa muxuu qabtaa wuxuu ku leeyahay wallahi he's an incredible player. waxa laga wadaa qof oo wax
wuxuu ku leeyahay Umar Hussein waxa qof laacib ah waayo ma loo gali karo. This is a wonderful coach, and Coach Heffley, he did a whole bunch of stuff here, sending the kids to colleges and all that. And this year he had a quarterback here signed to Ohio State. Omar was a tremendous athlete. He had a lot of stamina, and he was very explosive running with the football. But probably more than an athlete, Omar is a dedicated person who works hard trying to complete his goals. I like how you was coaching when I went here. You was one of the best coaches. I'm not going to ever forget about you. Coach Heffley sent me to Kentucky State. My season here went great, and as it was here for the last 3-4 years, and the team been winning. iskoolka daawareysat wax dhaad Umar ka waran waxay ku leeyihiin wallahi he got too much stamina wax waay ninkan waxay ku leeyihiin wuxuu cunaa hilibka ariga waayo that's why waxay ku leeyihiin ma noogaay marka wallahi wax kasta ilaahay wato qanziirkana ma cunni waxa u maleena noogitaanka waa qanziirka dadka cunaa waa ma noogaay maanta dhan iska orda hadaa rabo orodkayga horta aniga wax waay mali gali karo orodkayga wax waay aad iyo aad orod u qabaa I'm super fast so orodkana waxa dhiso adiga swimming pool ay gym markay aado waaskada iska galaa waa ordaa badda California markay aadana carrada ku ordaa geedaha jirto qalab lugaha lagu xirto oo orodka si dhisaayo cuntadana waa iska ilaaliyo cuntooyin waxa cunaa oo adiga oo wax oo fiican fruit iyo waxyaashaas oo jirka dhisaayo cunaa daawooyin ma qaata daawooyinka badana dadka badana daawooyin cunaa daawooyinkana waxay ka dhigay too much big ka dhigay weyn markii ka dhigtan daawooyinka ku islo galeen aniga marka orodkayga dadka saas ma u fahamsan laakiin 40 yard dash footballka 100 yards why football 40 yards ka sada loo dhiga I can run a 4.35 wax way Reggie Bush na meelahaas warda Reggie Bush midka oo Heisman karay dadka badana aad si fiican u ka saan laakiin dhalinyarada America soo karay Reggie Bush way ka saan midka dhaaysan New Orleans Saints ani asiga hada orodna dhigo waxa laga yaabaa inaan isku orodnahay 4.35 orda iskoolkan way og yihiin dhanka oo trackna u soo orday iskoolka waxa way football marka ciyaaraysid dhanka orodkana track al dhaha track season markuu bilaabto ina orodid waa hada oo footballka rabtid ina ku guuleysatid oo orodkaaga hadda Soomaalida marka u sheego wax way adiga magaalada Columbus waa laga ka saa dhalinyarada ina kamid tahay kuwa oo high school football u soo ciyaaray laakiin badana marka yaraa way ila yaab jireen waxay dhahaan Somali football ma ciyaaraan maxaa ku jeclaatay marka aniga waxa dhaha ku jeclaaday wallahi ciyaartan soo ciyaari jiray American mar Dominican waa ku soo koray marka dadka si fiican u fahamsan ciyaarta marka ciyaarta wax la fahamsan dadka America ku soo koray oo footballka si fiican u kalkasay anaka magaaladeena badana waxay jecel yihiin soccer garoonka soccer-ka ciyaaraan magaalada Columbus waxa lagu qabtaa soccer tournament laakiin magaalooyinka badana football si fiican dadka u kasay marka aniga waxa rabaa footballka dhinaca footballka ina fahamsiyo footballka si loo ciyaaro iyo dhalinyaradeen football Soomaaliyeedina anaka waa dhisanahay wax kasta soo bikrna orodka dhanka basketballka wax kasta laakiin wax kasta waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay dadaalkan aniga waa soo wada marka yaraaya bilaw dadaalka marka Soomaalida badana hadda way ka saamay magaalada Columbus way ogeen football markay dhahan Ali dhahay footballka ka waran hay ma lagu qaatay wallahi waxa dhaha waa wada tartanka waa ku jiraa wili laakiin Ilaahay wax ka soo wataanay laakiin dadaalka waa wada Ilaahay tala saarna ciyaarta hadda waa si wada birna waa qaada habeen imaalna qaada bir marka soo kaco aniga football iyo la soo kacaso wax kasta Ilaahayna waa tuuga marka Ilaahay wax kasta wata koox fiican haday qaataan waxdaas oo ciyaara marka waxa kamid ah Soomaalida oo dhalinyarada Soomaalida midka ku oo jaamacada u soo ciyaaray Western Michigan waxa u maleena shahaadada waalisi Columbus oo Soomaali midka scholarship la siiyo football to play Division 1 football MAC conference insha Allah wax kasta waa wadnaa Ilaahay wax kasta wada laakiin insha Allah waxna waa rabaa inaan la ogaado ESPN oo ku jira Spike TV oo ku jira ade kooxyaal badan aad way fiirsanooyin marka Ilaahay wax kasta wato Soomaalida waxa uu sheegay dadaalka si wada dhalinyarada Soomaalida oo Minnesota joogan California Seattle Columbus Ohio meel kasto dadka fiirsanooy dhan waxa rabaa inay jidka oo sax ku socdaan oo jidka qalad iska daayaan Europe iyo dhalinyarada Africa iyo meelahaas joogan insha Allah footballka ka soo qayb gala ciyaar fiican waaye oo dadka oo si fiican u bartaan rabaan kasoo qayb gali karaan soccer-ka inta America dadka Europe football waxay u ka saayeen soccer laakiin America football waxa uu ka seenaa NFL ka definition-keeda waxa way National Football League marka idanka insha Allah dadka football-ka raba ay daawadaan
waxaan rabaa Soomaaliga ugu koobay inaan noqdo NFL-ka ka ciyaaro television meel kasta iga fiirsanaysan Europe la iga fiirsanaa Soomaaliya la iga fiirsanaa waxa la iga fiirsanaa wadanka America Cuba meel kasta Mexico ilaahay meesuu dhaho haddana daawadeel waxaanu idiin soo gudbinaynaa video aanu idinka soo diyaarnay John Johnson oo ah nin ku takhasusay dhaqanka Afrikaanka iyo waliba ciyaarahooda waxa uu ku takhasusay oo kale folklore-ka Soomaaliya ayuu waa horjoogi jiray gabayada Soomaalida ayuu turjumay waxaan uu qoray book la yiraahdo Helloy The Development of the Genre Hello in Modern Somali Poetry John waxa uu jeclaystay inuu la dardaarmo ama uu la hadlo Soomaalida khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku soo jeedaa dadka la yiraahdo indida cascas ama albaysanka Soomaalidu u taqaano waxa uu idinkaga warramayaa dadkiisa sida loo galay iyo sidii ay ahaan jireen wuxuuna jeclaystay inuu idin la qaybsado dhibta soo gaartay dadkiisa wuxuuna rabaa in idinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay iska ilaalisaan ama ay ka feejignaataan dhaqankiina oo luma nala daawada videogi waa kanay I'm retired and it's for you Somali youth to get off the couch, turn the television off, and start working with your own culture and preserve Somali poetry and preserve your own language. This government in this country will do its best to have you forget your language, and that is the beginning of the death of culture. So you must study your own language from your parents, your uncles, your aunts, and the other community members wherever you're living. And while you study the language, you must also study the poetry, because that's a major part of your culture. It's not just these material artifacts. It's also the orature, the oral literature of your society is very, very important. And it will help you preserve Somali culture, even if you are not inside the borders of Somalia. You know, it's necessary to survive. You have to learn English or French or wherever you're living, Danish, Swedish, wherever you're living, you have to learn the language of the area. But you don't have to do that in your household. And your parents don't need to speak a foreign language to you in your household. The best way to become bilingual is to learn both languages from the cradle up. If you have to learn Somali after you become a teenager or in your 20s, it's difficult. It's possible. Hussein Tanzania didn't speak any Somali until he was about 30 years old, and he's fluent in Somali now. So it's possible, but the easiest way is to learn from the cradle up. And when you go off to school, to the first grade, you're going to have to speak the language of the country. But at home, you should speak Somali. And in that manner, you keep your own ethnic background. My ethnic background is I'm not completely European. My identity lies in the Cherokee Nation. I'm a Native American. And the American government has done its best to obliterate native languages on this continent. Most of my people don't speak our native language anymore. We only speak English. We still preserve our culture, but we have lost a great deal of it because we don't speak our native tongue. My name in Cherokee is Galalo'i Awahatli, which means eagle. He flies in the vault of the heavens. We don't have our language like we used to. We've started teaching Cherokee to our young people in grade school now in Oklahoma in the hopes of reviving our language. But I cannot stress to you how important it is to keep speaking your native tongue. And we've lost a lot. We lost a lot of our culture because
when the Europeans came to America, they brought many diseases with them. And in the first 50 years of contact, 3/4 of my people were dead with smallpox. Now, who dies in an epidemic? The elders and the youth. And who keeps the culture? The elders. So we lost a lot of our culture within 50 years because so many of our elders had died in the smallpox epidemics. There were 2 of them. So hang on to your language. waata daawadayaal waxaan la soo gaaray xilliga aan idin soo gudbin jirnay videoga toddobaadka waxa aanu jeclaysanay in aanu gadaal idin celino oo aanu idin xusuusino beri hore Soomaaliya sidii ahaan jirtay dad far badan oo ay kamid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo koray xilliga dagaalka kadib kama ay warqabaan Soomaaliya sidii ahaan jirtay marka shaqaalaha wargelin waxay go'aansadeen in aanu idin tusno sidii aanu ahaan jirnay inaanu dawlad ahayn inaanu sharaf lahayn haddaba sharaf waa leenahay laakiin in aanu dawlad ahayn oo dad jira inaanu dawlad ahayn inaanu ahayn dad adduunka laga yaqaan oo loo soo dalxiis tago videogan marka waa video aan soo keenay videogan waa video aan isku soo dardarnay oo aan music u sameynay sababta aanu videogan idin tusayno waxa weeye haddii aad og tahay in ay wax ka lumeen way fududahay inaad raadisid ama aad heshid wixii ka lumay Soomaa laakiin haddii aadan ogeyn in ay wax ka maqan yihiin ama wax ka lumeen fadhiga ka kicmaysid marka waa video aan rabnaa in ku gubaabino ilaahay hadduu yiraahdana Soomaaliya sidii ay ahaan jirtay si ka fiican bay noqonaysaa laakiin Kala hawe
waata daawadeel waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena maanta inta laga gaaray toddobaadka soo socda waxaan rabnaa barnaamijkayga inaan ku xirno mahmaadan maxay tahay saddex lama raaco ma horeeye ma hambeeye iyo mahasaawe waxaan rabnaa inaan u mahadnaqno dhammaan maamulka iyo shaqaalaha University TV oo aad ka daawan kartid barnaamijka wargelin toddobaad walba maalinta axadda warka kadib inta laga gaarayo toddobaadka soo socda waa sidaas iyo nabad gelyo